ayadoo bisha barakaysan lagu guda jiro ama aan lagu jirin ayaa xaafadaha qaarkood waxay ka cabanayaan biyo la'aan, caafimaad la'aan iyo wada la'aan. Saakayto waxay kaamarada Raya TV u koori gashay xaafada lagu magacaabo Hayayaabe oo 360 mitir u jira xaafada ugu dhow oo ah Dubuluq ama Sheed Dheer. dadka ku nool xaafadana waxay aad uga murugsan yihiin biyo la'aanta haysata sanadihii u dambeysay. waxayna dadkan isweydiinayaan ayagoo ammaanka ku haya shirkadda Shaaba ayaa ka jirta, haddana maxay tahay sababta Shaaba qorshaha ugu darsan weyday biyo gelinta xaafadahaas. marka aad dhex marto xaafada Hayayaabe waxaad arkaysaa wax ka naxiya ha ahaato dadku la biyo la'aan awgeed. salaada waxaan ku dahaar qaadanaa marmarka qaarkood ciida dhulka taala. sidoo kale wax aan ka naxo ku soo arkay intii aan ku jira koorigalida xaaladda biyo la'aanta ka jirta xaafadaha Hayayaabe dameer, taas oo dhammaan xaafadaha Hayayaabe ay ku dhaansan jireen. dameerkan balse imika saad arkayso xanuunsan yahay, wuxuuna qaadi jiray 4 jirika oo ah qoysba maalin. ayashoodayaashu waxa ay yiraahdeen maadaama wada la'aan ka jirto waxaa nagu daran maalinka ama habeen uu roobku da'ayo ma jirto cid ku tashanaysa inay suuqa ama xaafadaha aado sabab la xiriiro wada xumo iyo biyaha ka soo rogmanaya dhinaca koonfureed kuwaas oo ku soo shalwanaya beeraha. qof kasto ka soo baxaya xaafadaha Hayayaabe waxa uu ku tashanayaa talow haddii aad dhex marto beeraha ma laga yaabaa inaad ka badbaado dhiiqada iyo daadka. sida ka muuqata dadkani waxay kale ka cabanayaan dhakhtar la'aan kuwaasoo sababa in la waayo wax lagu qaado dumarka umulaya ama xaaladdu ku xun tahay. kuwan ayagoo ka hadlaya Hayayaabe waxaan u sheegaynaa hay'adaha waxaan ka codsanaynaa iyo dawladdu waxaan ka codsanaynaa surmi baan u dhimanaynaa bisha Ramadaan waxaan soonka ku furan ma haysano waan dhib qabnaa. dameerkii beesha u dhaaminayay afar qoys baa cabay afarta jareekaan 500 waxaan ku cabnaa 4 kun. bismillaahir rahmaanir rahiim. anigoo magacaygu Yeemun Xasan Cawaale haddii aan ka hadlno lambar 1 biyo la'aan, lambar 2 wada la'aan, lambar 3 dhakhtar la'aan. hooyooyinka war kale maanta haday fool qabato meel aan marna ma hayno, ambalaasan ku qaadna ma hayno, meed hadduu xaafadeeda ka dhinto noo meed bariyaa, biyaha ku maydna ma hayno, iska rogadii noo soo qaadi lahayd meel ay marto ma hayno. wax uu mulisaan waxaan leenahay to ambaratiya oo wali dhakhtar ba tagin. magacaygu waxa la yiraahdaa Xamsa Abdi Cilmi, waxaan ahay nin ka shaqeeya maxayda dameeradan biyaha ku dhaamiya. maxayday mararka qaarkood dameerku iga rida biyaha idin la rartana waan waya marka ma qaadi karaynana jirkaanada waanan dhuubanahay. waa biyo iyo jitaan marno bilaajid baan nahay istaanta deefoolnayso gaari la noogu qaaday ma haysana dadku wadadii meesha ma jirto waa dadkuna way iska danyaru badan yahay. roob haduu daaw hadda qalabta ka soo talawdo joogsatid dhigta soo gaadhid wadaad soo rogmada meel aad martay ilmaha ma jirto dad kala dhibaato weyn ayaan haysta haraad haddaan ahay waxa la yiraahdaa Maxamed Sheekh Daahir waxaan noolaa beeshan Hayayaabo. beesha aad bay iska dhibaataysan tahay, dad aad u xabaan nahay, wada malihin biyo malihin يا جديد ملهين ودكتور ملهين عسكر ملهين سلدق عسكري ملهين عام دكتور عافماد ملهين اسكول هاكسل ملهين ودب ملهين كوبان إن بينا لا كنا وايو بيو باهي وين بينو هيان واحد يبسنا مالتي أفر شركة مركز غير كده حكوا أفطرنا محلنا بيا الآن وديد وايو محلنا قاب عافماد وايو وحناقو عن دخاتر لا وحناقو عن لسلان وحناقو عن مركز غير كده مركز بيو صور مدان إنه بيا بهلين. sidoo kale xaafadaha Hayayaabe waxaan kula kulmay hooyo ka umulisa hadbati umulaysa waxaana ay sheegtay inaysan wax lacag ka qaadan balse Ilaahay dartii ay ugu qabato maadaama aysan jirin wax dhakhtar oo halkan ka hawlgala. bismillaahir rahmaanir rahiim. Iba Xuseen Ismaaciil anigoo aad umulisada beesha Hayayaabe oo barbaradka aan wali aan dhakhtar aan marin oo daa calooladaygu ku keenay. marka qaabkay ku soo baratay qaab wallahi calool aday iyo dar Ilaahay umulisay baadiyo wadan ku batay qofkii ku ag joogo waqtigu ka taagan yahay meel aad gaarsiisaad weydo deemaan ka carari mooy waan ku calooladay waan ku qabtaa sida ma ku barto Ilaahayna day u gargaarona wali wax dhibanaana la kulmin laakiin waxaan u baahanahay inaan wax barto oo meel la geeyo oo seminaarkeeda u soo maro oo caafimaadkeeda aan ku helo ayaan u baahanaan ka rajaynayaa inaan helo. maadaama saa ay tahay shirkadda Shaaba oo ka hawlgasho magaalada Boorama ayaan waxaan weydiiyay maxay tahay sababta aad xilsiga saari weydeen inaad gaarsiisay xaafadda Hayayaabe.
balse shirkadu waxay igu jawaabtay dhammaan waa la gaarsiiyay xaafadaha oo dhan wuxuuna sii raaciyaa isagoo jawaabta diidan ma garanayo dadka halka aad ka keentay haddaba shirkadda shaaba oo u qaabilsan haqabtirka baahiyaha biyaha ee magaalada Boorama ayaa ilaa imika aanan ka haqabtirin xaafadaha qaarkood kuwaasoo sheegay inay afkooda shaaba ka tiri ma gelin doono mana keeni doono qasabad ku filan haddaba maadaama lagu ilaaway biyagelinta hay-adda shaaba waxay tahay sababta maamulka dowladda hoose ay wax uga qaban laayihiin dadka dhibaatadu ka haysato biyo la'aanta wada xumida iyo dhakhtar caafimaad la'aanta hayeeshee waa nasiib darra in 12 xubnood oo ka tirsan golaha deegaanka ay jalaq iyo joogtoona u siin waayeen cabashada ka yeedhaysa dadweynaha biyo la'aantu haysato 12 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ay jalaq iyo joogtoona u siinayn cabashada ka yeedhaysa dadweynaha biyo la'aantu hayso haddana waxaad arkaysaa ayagoo isku khilaafsan dhismayaasha kale ay hay-aduhu fangelinayaan